dhalinyaro kale iga soo horeysay oo arday ayaguna ahaa waxaan u malaynayaa inaan 60 gaaraynay Soomaalida waagaas timid ya marka anigu waxaan ahaa dhalinyaradii ay la socotay anigu waxaan imid magaalo la yiraahdo Codbos maalintii labaad oo magaalada wadanka nimid ayaan afka bilownay afka waxaan ku baranay waxaan bilaabi jirnay 8 subaxnimo waxaan ka bixi jirnay habeenkii 7 waxa la yiraahdo intensive oo mataqaanaa dheer afku waa dheera marka dhibaatadan haysata anaga waxa ahayd turjumaan ma aan haysan waayo wadanka bari Jarmalka bari waxay ku hadli jireen Rush anaguna Ingiriis baan ku hadlaynay marka waan ugu adkaa laakiin ilaahay mahadiis anagu waxaan ahayn mataqaanaa dhalinyaro furfuran oo mataqaanaa dadka dhex gala oo dadka aan ka cabsan mataqaanaa la sheekaysta marka afku wuxuu ku fiican yahay hadaad baranaysid inaad dadka dhex gashid oo aadan meel istaagin haddii aad iskuulkii afka aad soo baratay mataqaanaa vocabulary aad soo baratay ama kelmadihii wixii aad soo baratay waxa fiican inaad dadka ku tijaabisid ya oo aad kula hadashid markaas degdeg baad afka ku baranaysaa laakiin wixii iskuulka aad kala timid haddaad guriga la tagto aad qofna la hadlin waa kugu adkaan doonaa afku taas waa la hubaa fahmaysaan marka walaalayaal is fura dadkana dhex gala saasa degdega afta ugu baranaysaa Dankeschön. Ciao.